السلام عليكم تلي محل الألفن dadweynaha reer Soomaaliya waxaan ku salaamayaa 140 quraanka halkan aanu taaganay waa kaantaroorkii magaalada Laascanood sidaasaan horta idiin sheegaya waa nabadgelyo waxaan leeyahay guul iyo gobonimo waxaan idiin sheegaya qoladina sawaaqroon ee aan maalin hore la hadlayo maanta la hadlayo adeero Umar Maxamuud iyo Ciise Maxamuud ilma Maxamuud Salebaan baa loo baahnay meesha joogaan laakiin sawaaqroon taadara afkaygu waa ka weeyahay afkaygu nin kalluun gurto diifa afkaygu waa ka weeyaadan annana waxaan cunaa geela kurskiisa iyo meydhaqiisa iyo saradiisa adna kalluun baad cuntaa marka afkaygu waa ka weeyahay gacanteedana waa kala xishoonaa aroorta guyinayna iska qabta haddii kale waxaan leeyahay qolada ma jeerteen kurbayna keena reer kurbayrkii baa leemika hadhae wax kaloo iyo harsan ma jiraan haddii kale iskaga taga meesha malihidin kumaydin dhalan maydin leeyihiin isku hayb baanu nahay gaar Soomaali oo dhan waa isku wada hayb waas xignaana ale meesha ma soconayso wallaahi baan u soconayn madaxweynena waxa la meeyda soo socotaa amnigii jiriyo aynaka hay mudane madaxweyne adiga saasan ku leeyahay heeskaasaad noo qaadaysaa maalinta mayda baa goboladu qaadayaan ciidankuna iyo baanboyda mudane madaxweyne waxaanu ka codsanay maalinta inaad heeskaa saarto waxaa dhigay ninkii loola jiray odaygii xasan sheekh muumin yaanu ku xasuusanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi